Extraction waxay tahay sidaan u samaynaa ama sidaan u dhisnaa. Dhalinyarta Soomaaliyeed hal talaan siinaya maanta. Maanta haddaad doonayso inaad wax xirfad oo practical ku base garayso inaad barato, waa inaad waqti gelisaa horta, time badan gelisaa. Maanta adduunyada waxaa jira intaasoo platform oo e-learning ah oo online wax kaga baranayso oo basiida, xirfadda aad doonayso aad qaadan karto. runtii zamaanka maanta lagu jiraana AI era baa lagu jiraa. Early 2000 markii 2000aadkii waqtiyadii hore .com era baa lagu jiray website-yada iyo sida adduunyadu waxa internetka internet of things waxyaabahaasi aad focus u saarayay oo loo kala hormeereynayay. Zamaanka maanta jirana imika waa loo kala dheereynayaa waxa AI-ga la yiraahdo artificial intelligence-ka automation-ka. The more deeply aad fiilka u gasho oo u barato adduunyada biri qofka maamulaya wuxuu doono ahaado qofku ka expertsan yahay adduunyada wadanka uu kaga horeeyo xagga artificial intelligence-ga ayuu kaga hormaraya ayuu awoodda caalamka noqonaya. So wixii technical mar walba adduunka markaa jira ee waqtigaa jira baro. So waa inaad technical wax u dhistaa adigu aad abuuri kartaa samayn kartaa. Haddaad barato wixii aad baxsi ka samayso oo adigu research badan samayso waad ogaanaysaa waxaad u baahan tahay. Maxaan bartaa? Waad ogaanaysaa kaliya adigu waxaad u baahan tahay naftaada waqti sii waxaan doonayaa wixii technical project based adduunyadu technology bay maanta ku tartamaysaa, especially artificial intelligence. waxyaabihii la halmaala ee soo raaca ani fiilkaasi beritoole waxaa lagu leeyahay maanta boqolkiiba more than 95 million jobs ayuu replace garaynayaa AI-gu. waa AI 2027 baa laga hadlaya. waayo AI agentiskii waxaa loogu talagalay iminka shirkadda DeepMind waxay dhisaysaa infrastructure-kii data center adduunka u weyn ee lagu ikhtiraacay lagu sameeyo AI agentiska. ka AI 2027 AI agentiski waa ku hayaa. waxyaabo badan baa la isku hayaa waqtiga oo jira oo aan la sheegi karin laakiin zamaanka waqtiga markuu halkaa marayo waa sanad baa kaaga haday listi sanad iyo dhowr bilood maxay tahay waa naftaada waqti geli hadda waad samayn kartaa intaas ku dadaal in aad wixii technical ee la xiriira technology-ga ee practically aad u samayn karto adigu aad dhisto. Okay naftaada update garay mar walba inaad waqtiga la socotaa waa muhiim. aad baa kuu salaamay khayr baa iska ognahay.